deegaanka Goobweyn waa deegaan dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku nool dad isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato. Goobweyn waxa ay caan ku tahay dalxiiska waana halka ay isaga daraan webiga Jubba iyo badweynta Hindiya. Deegaankan ayaa waxa gacanta ku haysa dawladda Jubbaland waxaana deegaankan laga fuliyay dhammaan adeegyada muhiimka u ah bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah bulshada. haddaba waxaynu barnaamijkan kaga hadlaynaa adeegyada caafimaad ee ka jira deegaanka iyo saameyntii caafimaad ee ka dhalatay fatahaadihii dayrta ee El Niño. halkan waa isbitaalka deegaanka Goobweyn. adeegyada caafimaad ee uu bulshada deegaanka u haya ayaa waxaa ka mid ah nafaqada carruurta, tallaalka carruurta iyo haweenka, qaybta daaweynta dadka waaweyn iyo qaybta dhalmada. waxaa xusid mudan in isbitaalkan ay ku xidhan yihiin ilaa 10 tuulo oo hoos yimaada deegaanka Goobweyn. isbitaalkan ayaa inta aan laga hirgelin deegaanka shacabka waxa ay la kulmi jireen caqabado kala duwan waxaana soo wajihi jiray dhibaatooyin ka dhashay xarun caafimaad la'aan.